bilowga filimkeena diyaarad ku jirta hawada taas oo ay la socoto haweeney ganacsato ah oo magaceeda la dhaho Xiao waxa ay u soo baxaysaa banaanka aeroboorka waxaana la socday staafkeeda isla mar ahaanta waxa ay ku hadlaysay taleefan waxa ayna dhahaysay shirkadda awal aabahayba iska lahaa balse hadda aniga ayaa iska leh isla halkaas waxaa banaanka ku sugayay saxaafadda si ay u wareystaan dhanka kale gabadh ayaa si qalafsan uga hadlaysa dembiga ka dhacay Maya iyo taas oo ay kor u qaaday in ay bulshada Shiinaha shucuurtooda inta kadib waxa nala geynayaa koox gaar ah oo hubeysan oo ku dhex soconaya kooxdu waxa ay haysataa laba askari oo maxalli ah oo wata hagayaasha taleefanka kuwaas oo toos ugu xiriirsan dayax-gacmeedka Carbin waxa ku socota rasaas waxayna ugu dhacaysaa gidaarada Jag waxa uu ka soo toosayaa hurdada halkaasna waxa kula jirta gacalisadiisa waxa la tooganayaa gacalisadiisa waxa uuna isku dayayaa in uu caawiyo balse waa ay dhimanaysaa Jag waa uu xanaaqay waxa uuna soo aaday dagaalka halka ciidanku ay ahaayeen kuwa guuleystay Jag waxa uu si weji ka weji ah ula dagaalamay mid ka mid ah ciidanka inta uu dagaalku socday dhexdooda waxa ka dhexdhacaysa bumbo ciidamada gaarka ah waxa ay awoodeen in ay gaaraan xerada kabtankuna waxa uu la hadlayaa wakiilka Yurub ee MI6 kooxdu waxa ay dishay qof kasta marka laga reebo madaxa meesha waxa jiray maxaabiis kuwaas oo ku jiray godad Defrekis askartii ayuu u sheegay in ay soo daayaan maxaabiista ku qufulan hoos oo ayna xoreeyaan laakiin kabtankii meesha haysta waxa uu u sheegay in ay joojiyaan waxa uuna xiiseynayaa colonies oo kaliya wakiilku waxa uu u sheegayaa in aysan xoreyn oo ayna yihiin argagixiso balse askartu aanay wax dan ah ka lahayn hadalkiisa iridii ayay gooyeen oo ay fureen waxaana ka soo baxay nin gurguuranaya waxa ayna ka jareen silsiladii Defrekis waxa uu ku amray in uu dilo waxa uuna ku ceejiyay silsilada markii uu dhintay waxa ay meeshii ka rideen qarax waana ay gubatay habeenkii markii la gaaray Jag waa uu soo kacayaa waxa uuna isku dayayaa jacaylkiisii oo dhimatay waxa uuna soo qaadayaa meydkeeda si uu u aaso qabrigeeda ayuu jilba joogsanayaa waxa uuna weydiinayaa waxa uu samayn lahaa xilligan wixii ka dambeeya isla mar ahaanta ninku waxa uu wacay qarsoodi ah taleefoonkeeda waxa uuna u sheegay in colonies la soo saaray Jag waxa uu soo aaday goobta dagaalka ee arena waxa uuna raadinayay laba nin oo gaar ah oo la dhaho Bayu iyo Long oo ahaa askariyaal Aasiyaan ah kuwaas oo la socday weeraryahanadii soo weeraray xerada Bayu waxa uu la dagaalamayaa ninkii ka soo horjeeday waana uu garaacay waxaana soo galay Long halka Jag uu doonayay sharadka isaga in uu bixiyo xoogaa lacag ah waxa uuna helay in uu uga hor yimaado Long waa ay dagaalameen intii uu dagaalku socday Jag waxa uu yiri kumu ahaa kii dilay xaaskayga dagaalku aad ayuu u kululaanayaa waxaana dheeraanaysa in la kala guuleysto Long waxa uu ka adkaanayaa Jag Long iyo Bayu waxa ay soo qaadayaan Jag waxa ayna u soo kaxaynayaan meeshooda Jag ayaa si tartiib ah ugu soo noqonaya dareenkiisa waxa ayna siinayaan cunno iyo cabitaan Jag waxa uu ku eedeynayaa in ay ka qayb qaateen wixii ka dhacay xerada labadooduna waxa ay u sharaxeen wixii meesha ka dhacay waxa ay u sheegeen in ay howlgalka uga qayb galeen arrin bini'aadantinimo oo kaliya ah waxa ayna damceen in ay sii daayaan maxaabiista balse kooxda inteeda kale waxa ay aad uga kululaatay oo ay xabsiga dhigtay ayaga laakiin si dirqa ah ayay markii dambe uga soo baxsadeen inta uusan dhicin qarixi weynaa Jag waxa uu weydiiyay nimankuyay ahaayeen Bayu waxa uu u sheegay in ay ahaayeen niman qoryo soo kireystay Bayu iyo Long ayaa u sheegay in ay ku tala jiraan in ay aargoostaan xaqiiqaduna ay tahay in ay aruuriyaan lacag ayna iibsadaan xoogaa qalab ah ay ugu diyaar garoobi doonaan weerarkooda Jag ayaa u sheegay in uu doonayo inuu caawiyo waxa uuna leeyahay xidhiidho badan oo uu awood u yeelan doono in uu la raadiyo ayaga waxa ay ugu yeerayaan agtooda waxa ayna cabayaan xoogaa khamri ah oo ay ka soo heleen lacagtii sharadka subaxii xigtay Bayu iyo Long waxa ay soo kacayaan ayagoo madax xanuunayo booliisku waxa
uu soo gaaray goobtii ay joogeen ee gurigooda. Booliisku waxa ay qabteen ayaga waa ayna soo xireen. Collins iyo asxaabtiisu waxa ay sugayeen Exiao marka ay ka soo baxdo interview-ga. Marka uu u dhammaado, Collins waxa uu helayaa wicitaan toos ah oo loogu sheegayo Bayou iyo Longi in ay weli nool yihiin ayna xiran yihiin, waana in ay ka takhalusaan ayaga. Marka hore kooxda burcadda ayaa weerar ku qaadaysa Exiao, waxa ayna dileen in badan oo waardiyaheeda ka mid ah. Exiao waxa ay ku leexatay ama isku aadisay gaarigeeda, waxa ayna haysataa bodyguard dhedig ah taasoo aad u dagaalamaysa. Waxa ayna sheegtay in ay u cararto police station-ka. Collins waxa uu sheegayaa laba ka mid ah raggiisa in ay ceyrsadaan Exiao, laakiin waxa ay ka gashay taxi, waxa ayna awooday in ay baxsato. Collins ayaa ku amray kooxdiisa in ay ka cararaan, waxa ayna dib ugu soo urureen baabuurkii. Labada askari waa ay garanayaan wejiyadooda, waxa ayna laga yaabaa in ay ka caawiyaan booliiska in ay baaraan sida ay ku heli lahaayeen Longi iyo Bayou. Exiao waxa ay timid xerada booliiska, ma aysan awoodin in ay la xiriirto taliyaha sababta oo ah ma uusan aqoon Ingiriiska iyo Chinese labadaba. Askarigu waxa uu u yeerayaa Longi iyo saaxiibkiis si ay uga caawiyaan ama ay ugu fasiraan Chinese-ka maadaama ay yaqaanaan. Collins iyo kooxdiisu waxa ay yimaadeen xerada booliiska, waxa ayna bilaabeen in ay toogtaan, waxa ayna burburiyeen wax kasta, waxa ayna laayeen askar badan. Bayou iyo Longi waxa ay go'aansadeen siday u difaaci lahaayeen Exiao. Mid ka mid ah ciidanka Collins waxa uu ku qabanayaa tooshka qoriga saddexdooda. Bayou waxa uu ku dhufanayaa nabar, waxa uuna sheegayaa Longi iyo Exiao in ay meesha isaga cararaan, waxaana bilaabanaya dagaalkooda. Jack waxa uu ka soo muuqanayaa dhabarkooda, waxa uuna tooganayaa ninkii, isla markaana Bayou waxa uu ku dhufanayaa jilib. Bayou waxa uu fahmayaa qofka u sheegay booliiska in uu yahay asaga oo dhigay xabsiga ayaga. Jack waxa uu ugu jawaabayaa waan ku khasbanaaday taas in aan sameeyo, waxaana rabay in aan dhammaantood isku meel keeno. Waxaa socday dagaalka Collins awaday, waxa uuna tooganayaa askarigii ugu dambeeyay. Longi waxa uu isku dayayaa in uu helo meel uu uga baxo si uu u badbaadiyo Exiao. Jack waxa uu la dagaalamay Moog, haweeney ka mid ah ciidanka Collins, waxa ay baabi'inaysaa ayaga iyada oo ku ridaysa bumba gacmeed. Dhanka kale, mid ka mid ah askarta Collins waxa uu hor istaagay Longi si uu uga qaato Exiao, balse Longi waxa uu isku dayay inuu heshiis la galo. Intii ay wada hadalku socdeen, Bayou ayaa caawiyay, waxa uuna meesha looga saaray Exiao iyada oo caafimaad qabta. Collins iyo ciidankiisa intii hartay waxa uu sheegay inay iskaga soo baxaan police station-ka oo ayna raacaan Exiao, ayna ka ugaarsadaan wadooyinka loo maro luuqyada suuqa deegaanka. Waqti yar kadib, Longi, Bayou iyo Exiao oo baxsanaya ayaa nala tusayaa. Safiirka China waxa uu akhbaarta ka maqlay in Exiao la weeraray, aad ayuuna uga xumaaday. Dhanka kale, Collins waxa uu wicid ka helay marwadii qarsooneed iyada oo hoos u neefsanaysa, waxa uuna u sheegay in aysan walwalin uuna samayn doono waxa ay u dirtay. Collins waxa uu wareegayaa keligiis magaalada asaga oo isku dayaya inuu helo Exiao. Waxaa qabtay askari, waxa uuna u sheegay in uu madaxa gacmaha saaro uuna sii jeesto. Askarigu waxa uu soo saaray baskooladiisii, waxaana yimid Jack kaas oo dilay askarigii, isla markaana Jack baskoolad waxa ku qabtay Collins, kaas oo weydiiyay cidda uu yahay iyo sababta uu u caawiyo. Waxa uuna u sheegay in ay leeyihiin hal cadow oo ah labada nin uu raadinayo, ayna yihiin in uu doonayo asagu. Waxa uuna u sheegay in ay wada shaqeeyaan labadoodu si wada jir ah. Collins waxa uu doonayay in uu helo gabadha, waxa uuna aqbalaya heshiiska. Bayou iyo Longi waxa ay ka haysteen gabadha, waxa ayna aadeen safaaradda China si ay ugu qariyaan meeshaas. Waxa ayna isku dayeen in ay helaan gaari ay isticmaalaan. Nin boolis ah ayaa waxa uu istaagay bannaanka timajaraha. Longi waxa uu sheegayaa in ay qaataan gaarigaas. Collins waxa uu la kulmay Defrex iyo Joy, waxa uuna horay u ahaayeen isku tiim. Waxa uuna u sheegay inuu dhab ahaantii u baahan yahay. Sidoo kale waxa uu u sheegay in uu Jack la shaqayn karo. Jack waxa uu isku dayayaa in
uu ku qanciyo in uu la joogo iyaga wayna ogolaanayaan. Son waxa uu helayaa meesha ay joogaan Exiao waxa uuna u sheegayaa booskiisa Colonis waxa uuna luminayaa waqtiga in uu helo waxa ayna hortiisa ka soo muuqanayaan Jack. Bayuu waxa uu la hadlayaa waqti yar waxa uuna u sheegayaa in ay ka tagi karaan balse hadduu ka hor yimaado Colonis in ay tahay arrin ayaga u taala. Waa ay ka carareen Long, Bayu iyo Exiao ayaga oo isku qarinaya gudaha mukhaayadda. Colonis waxa uu u sheegayaa in uu ka soo muuqday goobtii loo baahnaa iyo weliba waqtigii loo baahnaa. Jack ayaa yiri waa sax waana tan aan u baahanahay. Denverkis waxa uu wejigiisa ku aadiyay Jack waxa uuna ku yiri waa saxan tahay waxaana malaynayaa in uu Jack wax qarinayo. Jack waxa uu fiirinayaa gudaha mukhaayadda waxaana ay isku qarinayaan Long iyo kooxdiisu meel laakiin waa uu awoodi weynayaa in uu soo saaro. Gabadhu waxa ay la hadlaysaa labada kale waxa ayna u sheegaysaa in ay khalad ku ahayd inaysan aadin safaaradda China balse ayadu waxa ay filaysaa in ay halkaas geynayaan. Jack waa uu la socdaa kooxda Colonis waxa uuna ugu faraxsan yahay in ay ordayaan dhammaadka noloshooda. Marka xigta waxa ay sii wataan in ay cabaan cabitaankooda. Bayu waxa uu video call kula hadlayaa ayaga waxa uuna u sheegayaa in ay diyaar u yihiin in ay siiyaan Exiao ayaga oo u baahan in la siiyo $100,000 Mareykanka ah. Denverkis waxa uu leeyahay hubaashii tani waa khayaano. Colonis waa uu og yahay balse waxa uu rabay wado walba uu kula kulmayo gabadha ayna u tahay jaanis aad u wanaagsan. Waxa uuna u sheegay in uu diyaariyo shiishihano kuwa ugu wanaagsan. Labadoodii waxa ay soo aadeen goobta ay ku ballameen halka Denverkis iyo shiishihanadii ay isku faafinayeen banaanka. Long iyo Exiao waxa ay socdeen hoolka dhismaha lagu ballamay. Bayu waxa uu dib ugu laabtay banaanka waxa uuna tooganayay shiishihanada laba. Ficilkaasi waqti badanba ma sii socon. Denverkis waxa uu toogtay qorigiisii waxaana gadaashiisa ka soo muuqday Jack waxa uuna u muujiyay in uu run ahayn waxa uuna la dagaalamay midba midka kale. Long waxa uu la kulmay Joy. Jack waxa garaacay Denverkis. Long si fudud ayuu uga adkaaday Joy isla markiina waxa uu caawiyay Jack isaga oo la dagaalamay Denverkis xaqiiqdii waana uu dilay isaga. Bayu waxa uu la dagaalamay Colonis. Jack waxa uu u yimid si uu u caawiyo waxa ayna la dagaalameen labadooda Colonis. Colonis waxa uu u degtay hoos si uu u toogto Exiao. Bayu waxa uu gadaal uga yimid Colonis waana uu la dagaalamay waxa uuna dilay Colonis. Waxa yimid Joy waxa uuna qaatay baskooladii balse waxa toogatay Exiao. Ugu dambeyntii waxa guuleystay nimankii wanaagsanaa waxaana yimid gabadhii waardiyaha u ahayd Exiao. Dhanka kale booliisku waxa ay xireen naagtii amarka bixinaysay in la dilo gabadha. Filimkeenuna waxa uu ku dhammaanayaa Bayu, Jack iyo Long oo soconaya. Filimkeena magaciisana waxaa la dhahaa Triple Threat. haddii aad nala soo gaadhay dhammaadka waxaa kaa codsanaynaa si sharaf leh inaad subscribe noogu saartid. leegtaadu waa noo dhiirigelin. mahadsanid walaal.